muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago qodobo dhowr ah oo uu ka mid yahay wiil 15 jir ah oo Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Seattle ee gobolka Washington State gaarina inta uu dardaray uu ka cararay ayaa boolisku ay raadinayaan gaarigaasi iyo qofkii waday. Booliskuna lacag ayay ballan qaadeen qofkii soo sheega familka qoyska uu ka dhintay wiilkaasi yarna sidoo kale lacag ayay ballan qaadeen. Arrintaasi waan idinla wadaagaya. sidoo kalena maxkamadda sare maanta ayay soo xirantay 9 bilood ee maxkamadda sare ay shaqadeeda waday maanta ayay ku ekayd 3 bilood oo nasasho ah ayaa garsoorayaasha maxkamadda sare ay aadi doonaan go'aanadii ugu dambeeyay oo laga sugayay ayayna maanta ku dhawaaqeen. Madaxweyne Trump mid kamid ah waa uu ku guuldareystay oo caruurta wadankan ku dhalata in ay si toos ah muwaadiniin u noqonayaan ayaa maxkamadda sare ay ogolaatay xilli Trump uu doonayay caruurta waalidiinta soo galootiga sharcilaanta ay dhaleen iyo dadka fiisayaasha ku meel gaarka haysta caruurta ay dhaleen in aysan muwaadiniin noqon ayuu doonayay laakiin maxkamadda sare waa ay ka diiday. guusha madaxweyne Trump maxkamadda sare maanta uga soo hoyatana waxa ay tahay ciyaaraha ay gabdhuhu ay ciyaaraan transgenderka ragga ah in laga saaro macnaha qof rag ahaa oo dumar isku bedelay in uusan ciyaaraha dumarku ay ciyaaraan Mareykanka iskuulada iyo waliba jaamacadaha uusan ciyaari karin. arrintaasina siday ku timidna sidoo kale waan idinla wadaagaya. gobolada arrintaasi mamnuucayna maxay yihiin kuwa kalena maxay sameyn doonaan arrintaasina sidoo kale waan idinla wadaagaya. madaxweyne Trump oo si la yaab leh labadaasi go'aan ee maxkamadda sare ka soo baxay uga falceliyayna sidoo kale waan idinla haddii aan ku bilaabo gobolka Washington State gaar ahaan booliska magaalada Seattle waxa ay raadinayaan darawal jiiray 14 bishii May ee shanaad ee la soo dhaafay wiil yar oo 15 jir ah oo magaciisa la yiraahdo Cabdimalik Saciid Cabdullaahi. wiilkan isagoo bas ka soo degay isla markaana wadada gooynaya xitaa aysan jirin meel dadku ay ka gooyaan oo isaguna wadada gooynayay ayaa gaarigan idin muuqda oo gaari madow ah isla markaana sedan ah oo 4 daaqad lah uu ku dhacay hit and run kadibna qofkaasi waa uu cararay oo ma uusan istaagin. waa dambi kale oo dheeri ah intaad qof gaari ku dhufato inaad ka cararto adigoona booliska wicin amaba gurmadka degdega ah aan wicin. marka qofkan waxa uu sameeyay gaariga ayuu ku dhuftay wiilkan yarka ah oo 15 jirka ah. wiilka dhaawac halis ayaa gaaray isbitaalka ayaa loola cararay 7 kadib ayuuna isbitaalka ku geeriyooday. hadda marka ayaa warbaahinadu maalmihii u dambeeyay ay ka hadlayeen 7kii u dambeeyay arrintan sidii darawalkan lagu soo heli lahaa. booliska amaba sheriffka la yiraahdo degmada la yiraahdo King County ayaa hadda waxa ay leeyihiin shilkan waxa uu ka dhacay Federal Way isla markaana gaariga waxa uu dhaawac uu ka soo gaaray gaariga ama damage uu ka soo gaaray dhinaca midig ee sidoo kalena lugta dhinaca midig ayaa damage uu ka soo gaaray gaarigaasi. marka qofkii arka oo soo sheega boolisku waxay yiraahdeen lacag $1,000 ah ayaan siinaynaa. qoyska wiilkan uu ka geeriyoodana waxay ku dareen $4,000 marka $5,000 ayaa la siinayaa qofkii soo sheego. qofkaasina lama shaacinayo qof qarsoon ayuu ahaan doonaa. marka boolisku waxay leeyihiin kaamarooyinka halkaasi ka agdhawaa gaarigan sida arkaysaan maadaama xowli uu ku socday sawirkan aan sida tooska ah loo arkaynin ayaa laga qaaday. marka waxay leeyihiin dadka kaamarooyinka ka agdhow halkaasi inay kaamarooyinkooda eegaan maxaa yeelay gaariga number plate-kiisa haddii la aqoonsado ama taargadiisa markaasi kadib qofka iska lehna waa la ogaan karaa. marka wiilkaasi yarka Allahu naxariisto waxa uu geeriyooday dhammaadkii bishii la soo dhaafay ee May laakiin hadda ayaa arrintan ay soo shaac baxday. qoyska oo uu ka geeriyoodana samri iyo iimaan Allah ka siiyo ayaan leenahay. marka dadka Soomaalida ah ee degan aagaasi Seattle gaar ahaan degmada la yiraahdo King County bal waxaad ku tala gashaan xitaa meelaha gawaarida lagu sameeyo inaad tagtaan oo weydiisaan in ilaa iyo bishii la soo dhaafay 14keedii wixii ka dambeeyay ilaa iyo bishan June ee maanta dhamaadka in ay jireen gaari noocaas uu jiray oo loo keenay oo dayactir loogu sameynayo qofkii wata meelaha laga ogaan karo ayay ka mid tahay iyo kaamarooyin kale oo aagaasi ka agdhawaa. inkastoo boolisku arrintan baaritaan horey ay ugu sameeyeen welina ay wadaan haddana dadka shacabka ayay ka codsanayaan qofkii wax arkay in uu booliska uu la soo xiriiro si loo soo qabto qofkaasi dilay wiilkaasi yar oo 15 jirka ah oo Soomaaliga. marka Soomaaliduna ka qayb qaataan ayaan leeyahay. aad iyo aad u mahadsantiin.
dhinaca kale maxkamadda sare ayaa maanta soo xirantay sidaan idiin sheegay garsoorayaasha maxkamadda sare ee 9 ah 9 bilood ayay shaqeeyaan October horaanteeda ayay shaqada bilaabaan dhamaadka June oo maanta bishu ay ku eg tahay ayay gabagabeeyaan mararka qaarna toddobaadka ugu horeeya ee bisha toddobaad ee July ayay la gaartaa go'aamadii ugu dambeeyay oo laga sugayay maanta markii inay go'aan ka gaaraan ayay ku dhawaaqeen arrinta sida weyn loo sugayay waxa ahayd madaxweyne Trump maalintii xilka uu la wareegay 20kii January ee sanadkii 2025 waxa uu saxeexay wareegto uu leeyahay dhalashada Mareykanka lama siinayo caruurta ay dhaleen waalidiinta sharci la'aanta ku jooga Mareykanka iyo kuwa viisayaasha ku meel gaarka ah ku jooga waxa la siinayaa caruurta ay dhalaan muwaadiniinta Mareykanka dadka dhalashada haysta iyo kuwa waliba deganaanshaha rasmiga haysta ama green card-ka haysta arrintaasi marka maxkamadaha hoose waa ay diideen qodobka 14aad ee dastuurka waxaa ku qoran qof kasta oo ku dhasha Mareykanka dhalashada si toos ah ayuu u qaadanaya marka madaxweyne Trump dastuurkii ayuu ka hor imaanayay ama ka hor imaaneysay wareegtadiisu marka maadaama maxkamadda sare kiiskan loo gudbiyay maanta ayaa go'aankii kama dambaysta maxkamadda sare ay soo saartay 6 garsoore oo ka tirsan 9 garsoore ee maxkamadda ayay waxay yiraahdeen arrintaasi waa sharci waa dastuuri isla markaana dastuurka lagu xadgudbi karo saddexna waa ay diideen saddexda diiday waxay kala yihiin Clarence Thomas Neil Gorsuch iyo waliba Samuel Alito 6da ogolaatayna waxay kala yihiin John Roberts Brett Kavanaugh oo Trump uu magacaabay Sonia Sotomayor Amy Coney Barrett oo Trump afartiisii sano hore uu magacaabay Ketanji Brown Jackson oo Biden uu magacaabay iyo sidoo kalena Elena Kagan 6daasi waxay yiraahdeen arrintaasi waa dastuuri lagu xadgudbi karo marka hadda kadib xitaa iyo ilmaha hadda ku dhashay oo waalidiinta sharci la'aanta ay dhaleen dad waxa jira marka tourism waxa la yiraahdo dhalashada dadka dalxiisayaasha jira qof ayaa lacag leh uur ayuu leeyahay marka ticket ayuu soo jaranayaa mar ilmaha dhalashadooda ay soo dhowdahay Mareykanka ayuu imaanayaa Mareykanka ayuuna ku dhalayaa sidaas markaas ilmahaas si toos ah waxa uu noqonayaa muwaadin Mareykan marka madaxweyne Trump ayaa bartiisa Truth Social-ka waxa uu ku soo qoray arrintan markii uu ka fal celinayay waxa uu yiri waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dalka Shiinaha iyo wadankiisa weyn maxaa yeelay maxkamadda sare guul ayaa maanta uga soo hoyatay macnaha inta badan dadka tourism-ka ilmaha ku dhala Mareykanka Shiinaha ay ka yimaadaan ayaa la leeyahay ama dadka maalqabeennada ah marka waxa uu leeyahay arrintaasi waa guul Shiinaha u soo hoyatay laakiin ma ahan guul Mareykanka u soo hoyatay marka madaxweyne Trump marka sidaasi ayuu uga jawaab celiyay oo bartiisa Truth Social-ka qoraalkaasi ayuu ku soo qoray kiiska kale oo maxkamadda sare go'aan ay ka gaartay laakiin madaxweyne Trump dhankiisa ay u xugmisay waxa uu yahay madaxweyne Trump waxa uu ololeynayay arrintan la yiraahdo transgenderka sportiga ay gabdhuhu ciyaaraan ama heer iskuul ahaato ama heer jaamacad ahaato in aysan ka qayb galin dadkan isbedelay qof aan rag ahaa oo yiri dumar ayaan iska dhigay isla markaana waxaan doonayaa ciyaaraha ay gabdhuhu ay ciyaaraan inaan ciyaaro oo dadkan qoomuluudka ama transgenderka ayaa Trump arrintaasi waa uu ka soo horjeeday marka maxkamadda sare waxay tiri arrintaasi gobolada ayaa loo madax banaaneynaya labada qodob ay u cugsadeen waxa ay tahay in badqabka gabdhahaasi maadaama qof rag iska dhigay ragga iyo kala awood badan yihiin quraankana waa lagu sheegay marka in qof rag iska dhigaya uu gabdhihii la ciyaaro arrintaasi waxay keeni kartaa safety concern badqabka gabdhaha sidoo kalena waxa ay keeni kartaa arrintan sidoo kalena ay ka mid tahay competition-ki because waa looga adkaanaya markasta amaba feer ha ahaato ama lagdan ha ahaato ama orod ha ahaato dumarkii waa looga adkaanaya marka competition-kii tartankiina cadaaladnimadii ku salaysnay tartankana sidoo kale meesha waa ay ka baxaysaa arrintan waxaa soo gudbiyay 2 arday oo iyagu doonayay gobolada Idaho iyo West Virginia ka soo jeeda ayaa waxa ay doonayeen arrintaas maadaama goboladoodu ay mamnuuceen in dadkan transgenderka oo isbedelay sportska gabdhaha ay ciyaaraan in maxkamaddu arrintaas ay ka laabato laakiin maxkamaddu waxay tiri arrintaasi gobolada waa in loo madax banaaneeyaa goboladuna ay go'aan ka gaaraan saddexda garsoore ee diiday 6na waa ay ogolaatay saddexda diiday waxay yihiin Sonia Sotomayor Ketanji Brown Jackson iyo waliba Elena Kagan 6da ogolaatayna waxa ay yihiin oo Trump ku raacay arrintan John Roberts gudoomiyaha maxkamadda sare Brett Kavanaugh Clarence Thomas Neil Gorsuch Samuel Alito iyo waliba Amy Coney Barrett marka 27 gobol oo Republican ah ayaa horey u mamnuucay in dadkan transgenderka oo isbedelay gabdhaha ciyaarahooda aysan ciyaari karin goboladaasina waxay kala yihiin Idaho Montana Wyoming North Dakota South Dakota Utah
Nebraska, Mississippi, Arizona, Alaska, Kansas, Oklahoma, Texas, Missouri, Kentucky, West Virginia, South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee, Louisiana, Indiana, New Hampshire, North Carolina, Alabama, Arkansas iyo weliba Virginia. 27daasi gobol horay ayayba arrintan u mamnuuceen. Marka gobolada kale ee dimuqraadiga ah iyaguna tilaabo nuuce ah ayay qaadan doonaan. Trump inta keliya uu ku fiican yahay waxay tahay arrintan qowmoloodka isagu gabi ahaanba waa uu kasoo horjeeda. Xitaa waxa uu yidhi gobolada arrintan mamnuuci waaya lacagaha dowladda federaalka ay siiso waan ka jaraya oo gobolada ayuu arrintaasina uu ugu hanjabay. Marka madaxweyne Trumpna arrintan waa uu soo dhaweeyey. Big win guul weyn ayaa u soo hoyatay. Hadda kadib ma jiri doonaan dadkan isbedelay oo ciyaaraha gabdhaha ciyaari doona. Waxaana uu sheegay qodobkaasi oo qodob laga yaqansada ahaa in hadda meesha laga saaray oo maxkamadda sare ay ka saartay ayuu bartiisa Truth Socialka uu ku soo qoray. Marka labadaasi go'aan oo midna madaxweyne Trump ayna guuldarro u soo hoyatay midna guul u soo hoyatay madaxweyne Trump ayaa maxkamadda sare maanta go'aankaasi ay ka soo saartay. Maanta ayaana ugu dambeysay kalfadhigii 9 bilood ee garsoorayaasha 9 ee maxkamadda sare. Bisha October horaanteeda toddobaadka u horeeya ayay shaqada mar kale